Afurku gaar waa barnaamij ay dhalinyaro ka soo laabtay wadamada Khaliijka sameeyaan ku dhawaad 11 sano. Bulshada caasimadda ku wada xilliyada afurka ku soo raaga magaalada ee maraya wadooyinka ayay siiyaan afurku gaar oo ah biyo, timir iyo waxyaabo fudud oo qofka sooman uu ku gaari karo gurigiisa. Faadimo Warya ayaa nooga warbixisay waxyaabaha ka caawiya shaqadan iskaaga ah ee ay wadaan muddada fog. Soomaaliya waxa uu soo noqday 9 sano ka hor 10 sano ka hor barnaamijkan waxa wadnaa 9 sano oo lahaw بالعربي تصبير الصائم Soomaaliya waxa afurku gaar afur ma ahan laakiin waa afur ku gaaraysi hadafkiisu wuxuu yahay qofkii lacag leh qofka lacag lahayn waqtiga aadaanka u dhow intuu ordi lahaa oo degdeg lahaa oo dadka jaam galin lahaa magaalada adiga bajaaj adiga baabuur adiga hoome inuu qaybino timirta iyo sambuuska burka ku simil gaar la ila gurka markaas ka bacdi afur oo sunnada bacay islaam ka gaaro in afurka waxa uu fiican waqtiga in qofka yani timirta biyaha mar gashto afkiisa isla markii marka la aadimo اللهم لك الحمد dadka badan ka shaqeeyo waxa way ceel casiir yani dadka ciyaasha Soomaaliya loo bixiyeen فأنا dadka waxa way khaliij ku soo koray ku soo barbaaray fikradaas xaggaas ka keensan marka ay xagga arki jireen barnaamijtaas marka waxa Soomaaliya wax iska ma jiro Soomaaliya ka bilaabno alxamdulillah lacagaha waxay ku xirtay malba si mal waxa ku maalgelinayo banki mal waxa ku maalgelinayo magaciisa dhalinyaro oo dibadda jooga malba wasi yani si ilaahay yani noo fududeeyo alxamdulillah waxa yani barnaamijka wuxuu ku socdaa wuxuu yani meel fiican ku gaaray waxa waaye xoog dhalinyarada sidoo kale qaar ka mid ah dhalinyarada shaqadan qabata ayaan weydiinay waxyaabaha ay bulshada kala kulmaan iyo sida ay u arkaan hawshan ay hayaan magacaygu waxaa Shukr Abdulqaadir waxa kamid ahay munadamada Sunna al Hayaa sababtu waxay tahay aniga marka ku soo kornay wadan Carbeed waxa arki jirnay dad wax qaybinayaan dad oo yani dabaqad sareyso dabaqad liidato wax siinayso laakiin uma arki jirin inay tahay maanta ina qofkan soo kordhiyo wax fiican waa iska arki jirnay laakiin waa soo baranay waa soo aragnay laakiin wax kama qabanin waxna ma ku soo darsanin laakiin xamar marka imaan waxa aragnay dad badan oo aragno laamiyaasha joogan shaqeeyaan afurka gaarin dad qaar duruufeysan soo waxa jeclaanay waxyaabaha aniga soo baranay oo soo aragnay inaan wadankeena ku abuurno waxaan aragnay dad badan oo ka hortaagan waxyaabaha aniga qaban oo dhahayaan maxaa u qabatiin maxaa ka faa'iideyn jeebkiin wax ma gashatiin waaya u duubtiin soo mar walba aniga dadku waxa fahansiinaa ina aniga sababta u duubeen waxay tahay ina tusno dadka wixii bixiyaan ina aniga wax qabanay magacayga waa Xuseen Cabdullaahi Xuseen dadku waxa ahay oo wadamada Carabta ku noolaa marka alxamdulillah dalka marka imaaday alxamdulillah waxyaabo badan ka aaminsanaa jir laakiin waxyaabo badan hadana oo sax aaminaad isbedelaya jir alxamdulillah oo si wanaagsan barnaamijkan afurku gaar waxa ka qayb galay 3 sano ka hor wallahi runtii yani ma umaleynaynin dalka waxyaabahan amal in dad sameynay jiraan waxyaabo qaldana ka aaminsan marka intimaaneen alxamdulillah keen xasan bilan media magaalada Muqdisho